فضيلة الشيخ حسن عمر أو كبير علمودين كدقمة عابد واق أياماتي وسبتئة waxa uu si abaqada casharada taxraa ee fiqiga waxa uu soo jeediyay sheekha casharka dhigiina ku soo dhici doona waxaan ku jirnay duruus taxana ah oo ku saabsan cilmiga shariicada islaamka in la barto oo cilmi loo yeesho gaar ahaan cibaadada ruuxu inuu saxdo oo iska hagaajiyo wuxuu Ilaahay ku caabudayo iyo muaamalada iyo shay walba diintu ay ka hadlayso wuxuu u baahan yahay qofka muslimka ah inuu xogogaal u yahay si uu Ilaahay ula macaamiltamo iyo adoomadiisaba waxaan ku jirnay qaybtii dahaarada waxaan maanta qaadanaynaa baab gooniya oo ku saabsan xagga dumarka ku saabsan baan qaadanaynaa wuxuu ku saabsan yahay baalku waa baabul hayd faslun fil hayd haydka ayuu uga hadlayaa sheekhu daawadayaal ku soo dhawaada casharkaasi oo kooban haydku af Soomaali ahaan waa erey kooban oo hadda gaar ah kuma ahan laakiin macna ahaan markii la fasiro sida shariicada islaamka uu ku yahay waa dhiig caadiyan u yimaada oo ka imaanaya raximka haweenka meesha u sareysa ka imaanaya xaalad sixatina imaanaya xilli ay haweenaydu caafimaad qabto oo wax xanuun aysan jirin imaanaya kaas ayaa la yiraahdaa xayd wuxuu leeyahay marka muddo leeyahay dhiig caadadana waa la yiraahdaa muddo ayuu leeyahay marka waxaan ogaanaynaa muddadiisa da'u ku bilowdana waa leeyahay sinni ama waqti uu haweenka bilaabo ayadana waa uu leeyahay taasna waa ogaanaynaa marka xaylku huwa damu al-kharij min qubul al-mar'ati fi sihhatiha bila sabab wuxuu leeyahay sheekhu xayl marka la yiraahdo waa dhiig oo ka soo baxaya haweenayda qubulkeeda ka soo baxaya ayadoo caafimaad qabtana ka soo baxaya bila sabab waxada sababahaya oo ama xanuuna ama wax kalaana ma jiraan waa caado waa dhiig caado ah marka Soomaaliya laftigeedu way yiraahdaan haweeneydan caadadii bay qabtaa marka dhiigga caadadu muxuu noqonayaa daadeebu ku bilowdaa daada ugu horeysa oo ku bilaabi kara haweenku waa markay 9 sano gaaraan 9 sano jir haweeneydu markay tahay marka ayaa waxa bilaaba dhiigga la yiraahdo damul hayd markaasuu bilaabi karaa macnuhu waxa weeye haday 9 ka yar tahay dhiiggaas caadadu haweeneyda kuma dhici karo hadii dhiig lagu arkana waa dhiig si kale uga yimide dhiigii caadadu wuxuu ka bilaaban lahaa 9 iyo wixii ka koreeya marka xilliga uu bilowdo waxaan niri waa 9 sano meel ku intoodana male oo haweenku waqti kasta inay xaydaan waa suurtagal aayisooyinku wala yiraahdo waa jiraan oo ka quustay sinul ya'si aduu la sheego waa jiraa laakiin isku meel ma ahan sinul ya'si ko marka haduu gabadhii xayl ku dhaco muddada uu hayn kara intee tahay muddadaas waxay leedahay aqal bay leedahay muddo ugu yar ee uu hayn karo waxay leedahay oo kale qaalib wax la yiraahdo muddo haweenku ay u badan yihiin bay leedahay waxa ay kale oo leedahay wax la yiraahdo muddo akthara muddada ugu badan ee xayl uu joogi karo gabadhan markuu maanta xaylkii bilaabo muddada u yar ee uu xaylkaas joogi karaa waa 24 saac macnaa maalin iyo habeen weeye maalin iyo habeen maalin iyo habeenkaas ama xiriiraan ama ha kala go'go'naadaan muddada marka xayl ugu yar oo gabadha uu muddadaas la leeyahay xaylkii bay ku jirtaa ama asbuuci caadada ku jirtaa la leeyahay waa inay u yaraataa maalin iyo habeen ba ugu yar wixii ka yar waa hawl kale ma ahan dhigi caadada ma ahan marka maalinka habeenkaasna waa xiriiri karaan waana kala go'go'i karaan akthar kiisuna muddada u badan ee dhiig caada gabar intuu ku bilowdo uu hayn karo oo dhiigaas uu joogi karaa waa 15 maalmood weeye iyo habeenadooda 15 maalmood iyo 15 koodii habeen iyo dhiigaas uu joogi karaa ayagana waxa la xisaabinayo waa muddadaas ko wixii ka bata muddadaas oo 15 kana xayl ma ahan inta ka badan xaylkii waa ka baxda muddadiisa qaalibka asna waa jira muddo qaalib ah qaalib waxa la yiraahdaa
sida loo badan yahay haweenku sida ay u badan yihiin wuxuu hayaa 6 maalmood ama 7 maalmood oo hameenadii ay la socdaan 6doodii hameen ama 7 maalmood iyo 7doodii hameen muddadaas waa muddada ay qaaliban haweenku dhiiga helaan waa sida haweenku ay u badan yihiin marka 7kaas uu u dhamaadana daahir bay noqonaysaa xalkii waa uu ka baabaaya marka 3daas muddo ayuu leeyahay dhiigaasu si caadi ah u yimaada wax ciladu ma keenaan waxa la yiraahdaa marka muddada waa aqal oo inta ugu yaro ah maalin iyo hameen qaalibka oo ah 6 ama 7 maalmood iyo 7doodii hameen iyo aksarka oo ah waayahay 5 iyo 10 maalmood inta hadduu ka bato dhiigu aksarka hadduu ka sii bato waxa ka batay waxa la leeyahay waa dam fasaad waa dhiig cilad ah salaadiina way tukanaysaa wayna isdaahirinaysaa sidaas ay yeelaysaa hadduu dhiigu inta la dhaafo hadduu ka yar yahayna wixii salaad u dhaafay intay xaylka moodaysay 24 saac ama maalin hameen hadduu ka yaraaday wixii salaad dhaafay way soo qadaynaysaa maxaa yeelay dhiigii maalin hameen hadduu ka yaraaday xayl ma aha sidaa way marka dhiigaas xukunkiisu hadday gabadhi marka xayl qabto waxa la yiraahdaa gabadhaanu xaaido way oo macnuhu yahay daahir ma ahan waad soo marteen oo salaad baa ka xaraamahayd inay quraan akhrisaa ka xaraamahayd dawaaf kacbada ay dawaaftaa ka xaraamaha kitaab taabashadii masjidku nagaanshihi ninka isticmaalkiisii waxa soo dhan gabadhu hadday xayl qabto xaraam bay ka ahaayeen marka gabadhi goormay daahir noqon kartaa haddii xaylkeedu intaas yahay duhrigeedu waa intee duhriga oo baynal haydatayn ah marka la fiiriyo laba xayl duhriga u dhaxeeya macna ay gabadhaanu daahir noqon kartaa waa 5 iyo 10 maalmood 5 iyo 10 maalmood iyo 5 iyo 10 kooda hameen waa muddada u yar ee gabaru ay dhiig moogaan karto muddada u yar marka bishii labadeedii daraf baa la kala qaaday 5 iyo 10 daahir weeye 5 iyo 10 xayl weeye saadaradeed 5 iyo 10 maalmood iyay waxay noqonaysaa daahir 5 iyo 10kii kalena xayl baa loo daayay غالبka haweenku say u badan yihiin sida ay u badan yihiin waxay daahir noqdaan 23 maalmood iyo 23 kooda hameen bay daahir noqdaan ana xaylkii wuxuu ka maqnaanayaa 23 maalmood muxuu haynayaa markaas 6 maalmood buu hayay bishii muxuu ka maqnaanayaa 23 maalmood ama waxa dhada 7 hameen buu hayay markuu 7 hayo iyo wuxuu ka maqnaanayaa 23 maalmood markuu 6 hayana wuxuu ka maqnaanayaa 24 maalmood saadaradeed غالبka haweenku sida haweenku u badan yahay ee xaaladooda dhexdhexaadka waxa weeye inay 6 hameenna ay yihiin caada qab 24na ay daahir yihiin bishii ama ay 7 yihiin 23na ay daahir yihiin marka waxa lagu leeyahay waa qaalibkee muddadaas waana ka yaraan karaa waana ka badan karaa duhrigiisa meesha ugu dambaysa xad male duhriga aktharkiisu xad asagu male oo waxa dhici karta gabadhi inuu dhowr bilood ka maqnaado inuu sanad ka maqnaado inuu ka badan ka maqnaado qaaran waligood baxaylkii ku dhicin inta waa la helayaa marka duhurka asaga gabadhu muddada ay daahir noqonayso ugu badan xad male maxaa yeelay in xaylkii muddaba ku dhicin baa suurtagal ah ahkaam kale oo badan baa ku tacalluqda laakiin maanta casharkeena ku saabsan xaydka intaasaan ku soo gabagabaysanaynaa wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin casharada caynkaani oo kale ayaa ahmeedooda ugu fadhiya bulshada muslimiinta ah yaxya farxaan aadan warbixinta mustaqim TV magaalada caabud waa